dowladda Turkiga ayaa ku dhawaaqday in saldhigyo waaweyn ay ka sameysanayso qaybo ka mid ah waqooyiga Soomaaliya iyadoona arrintaas ay ugu gol leedahay in saldhigyadaasi ay noqdaan kuwo si guud iyo si gaar ahaaneed amniga xeebaha Soomaaliya looga sugo. saraakiil ka tirsan waaxda difaaca Turkiga ayaa si toos ah arrintan u sheegay iyadoona madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu safar ku joogo magaalada Ankara ee dalka Turkiga. madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo la filayo in ay kulmo gaar ay kuwa guud ay yeeshaan ayaa lagu soo dedejinayaa arrintan badda cas iyadoona dowladda federaalka Soomaaliya siday xaqiijiyeen ilwareedyo kala duwan in ay diiradda saarayso shirkaas iyo qaabka uu qabsoomi lahaa marka la eego in bilowga 2026 ba la dedejiyo saldhigyada ciidanka Turkiga ay ka sameysanayaan qaybo kala duwan oo dalka ka tirsan. gobolada Sanaag iyo Sool ayaa la sheegay in ay ciidankan si guud iyo si gaar ahaaneed bad iyo bariba ay tegi doonaan iyadoona la filayo in magaalada Laasqoray ee xeebta leh in ay saldhigyo ka dhigan doonaan Turkida kuwaas oo fulinaya heshiiska ay la galeen dowladda federaalka Soomaaliya. madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa si toos ah u sheegay in dowladdiisu ay garab taagan tahay dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya kadib markii lagu xadgudbay qadiyada guud ee ku saabsan in ay Soomaaliya madax banaanideeda midnimadeeda iyo wadajirkeeda meel ay u dhaceen dhanka Yuhuudda. saraakiil iyo xubno kala duwan ayaa waxay sheegeen in dowladda Turkiga ay markaan bilowday in fursad weyn ay ka dhex aragtay arrimahaas iyadoona si guud iyo si gaar ahaaneedba xukuumadda Ankara ay markaan ka shaqeynayso qaabka ugu fudud ee loo gaari karo saldhigyadaasi iyadoona dowladda federaalka Soomaaliya laga difaacayo xadgudubka xooggan ee lagu hayo. dowladda Turkiga ayaa kol hore waxay sheegtay in dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed iyo kuwa guud ee socday yihiin kuwa loogu talagalay in si guud iyo si gaar ahaaneed diiradda lagu saaro arrimaha guud ee hadda socda waana midda soo dedejinaysa in Ankara ay yeesho fursad kale oo weyn oo la xiriira qaabka ugu fudud ee saldhigyadaas loo xoojin karo. saraakiisha iyo mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ee warbaahinta arrimahan sida gaarka ula hadlay ayaa waxay dhankoodu sheegeen in ay wadaan dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira arrintan iyadoona dowlado kala duwan ay ku garab istaagayaan Turkiga qaabka ugu fudud ee uu gaari karo sida dhaqdhaqaaqyadaasi loo fulin karo. sargaal sano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in dowladda Turkiga abaabulka iyo dhaqdhaqaaqyada kale ee wada yihiin kuwa si guud iyo si gaar ahaaneed looga ogaanayo xaaladda siyaasadeed iyo fulinta ballankii 2024 dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ay wada galeen ee ahaa in amniga guud ee dalka wax laga weydiinayo dhanka iyo dowladda Turkiga. ila wareedyo kala duwan ayaa warbaahinta Xuuraansi waxay u sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya ay maalmihii u dambeeyay waday dhaqdhaqaaqyo guud oo ku saabsan qaabka looga falcelin karo arrimaha Turkiga ee la xiriira in ay ciidankooda soo dedejiyaan dhaqdhaqaaqyada guud ee la xiriira qaabka ugu fudud ee loo gaari karo hadafka siyaasadeed iyo midda amni ee lagula soconayo dhanka badda. saraakiishii mas'uuliyiintan ayaa sidoo kale waxay carabka ku xoojiyeen in ay wadaan dhaqdhaqaaqyo kale oo ay ku doonayaan in diiradda ay ku saaraan xaaladda guud ee dhanka siyaasadda Geeska Afrika wixii ka dambeeyay 26 Diseembar 2025 oo Israel ay sheegtay inay aqoonsatay Somaliland balse wajigabax kala kulantay fadhigii guud ee Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ee qabsoomay 29 bishan iyadoona diiradda lagu saaray arrimaha guud ee la xiriira cambaareynta iyo diidmada qeexan ee wadamada xubnaha ka Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ay kala hortageen in la farageliyo qadiyada guud ee dhanka Soomaaliya. saraakiil iyo mas'uuliyiin kala duwan ayaa waxay dhankooda sheegeen in maalmihii u dambeeyay ay wadeen abaabul iyo isku dayo kala duwan iyadoona dhanka Geeska Afrika dhaqdhaqaaqyada ka socday yihiin kuwa si guud iyo si gaar ahaaneed looga hortagayo arrintaasi. Turkiga oo qadiyadii hore ee arrinta difaaca badda ku helay fursad weyn oo la xiriirta in uu sameysto saldhig dayax gacmeedka laga tuurayo ee dhanka Soomaaliya iyo in uu dowladda federaalka Soomaaliya la galay heshiis ku saabsan arrimaha sugidda amniga badda ayaa markaan doonaya in uu mar kale ka faa'iideysto fursadan taas oo diiradda lagu saari doono sidii looga hortagi lahaa xadgudubka dhanka Israel ka yimid taas oo ah in la aqoonsaday Somaliland haddii ay dhacdana suurgal aanay arrintaasi ka dhigi karin dhaqdhaqaaqyada guud ee soconaya marka la eego dhanka Geeska Afrika. wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa soo dhaweysay go'aamada adag ee wadamada caalamka ay qaateen kuwaas oo ugu dambeyn meel cad oo baylaha dhigtay dhanka iyo Israel taas oo keentay
in turkiga uu soo dejiyo saldhigga uu ka sameysanayo soomaaliya wixii warar iyo dhacdooyin ka soo kordha arrintan baahinteena tan xigta iyo warbaahinta xuraansi ku daawo